magaalada Muqdisho caasimada dalka waxaa si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay barnaamijka bandhiga kaararka caafimaadka oo ay ka qayb galeen rugo caafimaad iyo cisbitaallo. Prime Pharma oo ka mid ah shirkadaha daawooyinka qaabilsan isla markaana qaabishay dadweyne fara badan kuwaasi oo u baahnaa adeegyo kala duwan oo dhinaca caafimaadka gaar ahaan daawooyinka. Mas'uuliin ka tirsan shirkadda Prime Pharma oo ka mid ah madaxdii ka qayb gashay bandhiga kaararka caafimaadka ayaa halkaasi hadallo ka jeediyay. magacaygu waa Cabdixakiin Cali Jeelle sida ujeedaan runtii waxaan ka socdaa shirkadda daawada Prime Pharma oo ka mid ah shirkadaha keena daawooyinka dalkan. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan runtii ka mid noqono bandhigan beerta banaadir ka dhacayso ay soo qaban qaabiyeen Somali Health Care Center. markaan idin sharaxo shirkaddan Prime Pharma waxay ka mid tahay shirkadaha keena daawooyinka dalkan, waxayna keentaa daawooyin tiro badan, waxayna ka kala keentaa wadamo kala duwan. sidoo kale waxaan runtii aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa guud ahaan isbitaallada runtii aan sablaagareyno oo aan runtii macaamilno oo halkan ku sugan oo aan ugu mahadcelinayo. sidoo kale maamulka cisbitaalka Al-Kawsar ayaa isagu waxa uu ka hadlay bandhiga kaararka caafimaadka iyo adeegyada ay u sameeyeen dadkii booqday xarunta lagu soo bandhigay ee beerta banaadir ee magaalada Muqdisho. magacaygu waa Dr. Cabdullaahi Shuuriye Xasan kana mid ah dhaqaatiirta ka howlgasha isbitaalka Al-Kawsar General Hospital. maanta waxaanu joognaa beerta banaadir bandhiga maaragtay lagu soo bandhigayo isbitaallada ku yaala Muqdisho. isbitaalka Al-Kawsar waxa uu ka kooban yahay laba qayb bukaan socda iyo qayb bukaan jiif ah. waxaan bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda waxaan rajaynayaa inay ka faa'iideysan doonaan fursadan oo bandhiga ah. dadweyne aad u tiro badan ayaa barnaamijkan kaararka caafimaadka ka faa'iideystay. bismillaahi raxmaani raxiim. aniga waa Xareen Maxamed Cabdille oo ah shaqaalaha beerta banaadir. waxaan ku soo booqday isbitaal Al-Kawsar waxaan leeyahay qabta service adeega oo ii sheegay baaritaan dhiigayga HB-gayga ii sheegay sokor baaritaan badan baa lii sameeyay. haddana insha Allah waxaa ii dhiman baaritaan badan oo aan geli doono oo ku soo booqan doono isbitaalka haddii Alla idmo. Ilyas Daawud Xasan, Star TV, Muqdisho.